قبيل ويدور جري يقدا قبيل ويتولي يقدا قبيل قرما يقدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسر دوادا channel كينا شنكرون channel وchannel كينا منين كينا مرتكم تهين عدي هوري هالكاسية صاحبكم وضنا هنا وحن إذن الله هاي هالكاس كسي شيء قرية لايك كومنت كينا نواديري جلنتنا ماشي هكيل لو بينا يعني إذن الله هاي عدي إيمان كهالكاني صاحب أنكم وضنا هنا وحن إذن قعد سنة يعني سبسكرايب صار. maantana waxaan idin hayaa qiso yar oo aad iyo aad u xanuun badan. gabar ayaa inaga soo codsatay in loo soo taliyo oo waxay leedahay qisadaas ayaa igu dhacday la soo taliyo. qisada waxay u dhacaysaa sida tan. gabadha waxay leedahay wiil ayaan in muddo isjecleen oo xiriir jacayl ah aad iyo aad waxaan ku raadayay waqti dheer soo wada qaadanay muddo 3 sano iyo bar ayaan wada soconay ayay leedahay. run ahaantii aad baan u jeclaa ay asagana aad buu ii jeclaa. haase haata waxay leedahay wiilkii wuxuu ii soo bandhigay guur waan ka codsaday markaan ka codsaday ayay leedahay reerka ayaan u bandhigay markuu iga codsaday ayay leedahay run ahaantii waan ka aqbalay reerkii ayaan u dhigay bandhiga aan u bandhigay ayay leedahay. arintaasi reerkayaga way ii diiday maadaama wiilka uu ka soo jooday ayay leedahay qoys sabool ah sida faqiirka loo yaqaan qoysaskaas uu ka soo jeeday. aniguna waxaan ahaa bay leedahay gabar reer maxaan ku raadayay oo dhanka iyo ladan reeraha ladan ka soo jeeda ayaan ahaa leedahay. reerkii way ii diideen waqti dheer kadib iyo dood halkaasi ka dhacday labada reerba. waxay leedahay waa la siiyay waa la ogolaaday ayay leedahay. haase haata waxay leedahay run ahaantii ay tiri reerkayga halkaas ayay igu ilaaween oo iga deeriyeen. waxay dhaheen haddii aad wiilkan maxaan ku raadayay aad raacday oo anaga hadalkeena diiday run ahaantii halkaas ayaad aniga nooga fasaxan tahay meeshaad la qaadayso la marayso la mar. aniga waxay tiri jacayl asaga aan u qabo awgi ayaa reerka ugu soo go'ay. waxay leedahay waan isguursanay nolol waxaan galnay ayay leedahay oo iska wanaagsan balse ay leedahay nolosha qof bini'aadin uu ku noolaan karaysan ahayn. waxay leedahay waan ku qancay midda aan ku jira maxaa yeelay qofka aan nolosha kula jira waxay leedahay waa qofka aan jeclaa muddada dheerna soo wada soconay. waxay leedahay run ahaantii halkaasi caruur ayaan ugu dhalay 2 caruur ayaan u dhalay ayay leedahay. markaasi waxay soo martay ayay leedahay nolol aad iyo aad u xanuun badan. haddii aan subaxii quraacda aan helo inaan qadada waayo haddii aan qadada maanta helo inaan cashadii aan heli waayo waxay tiri run ahaantii aad iyo aad ay ugu adkaatay. haase haata waxay leedahay intaas oo dhan anigu ma fahansanin oo ma dareensanin maxaa yeelay ayay leedahay asaga ayaan jecelahay oo wax xumaan ahna maana tuseenin ayay leedahay jaceylkiisa oo kaliya. iyo waxay tiri run ahaantii dhiirigelin fara badan garab istaag aan ku sameeyay shaqooyin aan la raadiyay. ugu dambeyntii waxay leedahay cunugii saddexaad aan dhalayay waxay leedahay shaqo fiican ayuu helay nolol raaxo leh ayaan galay guriyihii aan degnayn ayaan ka baxnay habeenii maalin. waxay tiri run ahaantii farxad ayaan halkaasi iskaaga nooleynay ayay leedahay. 3 caruur ayaan markaasi u hayaa ayay leedahay. noloshaas anagoo ku jirno habeenii maalin iska faraxsay tii shaleetana aan soo moodi ayay leedahay oon dulqaad iyo adkeysi intaba aan ku soo moodi ayay leedahay. ugu dambeyntii waxay leedahay maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa ii soo martiyay ayay leedahay run ahaantii gabar adeerkay dhalay oo dhanka miyiga ka yimaatay. sheekada waa halka ay ka halaabi doonto gabadha dhibaatada ay haysata halka ay ugu bilaabatay waaye. gabadha waxay leedahay adeerkay macaan oo abahay la dhashay ayaa dhalay dhanka miyiga ay reerkooda ku nool yihiin ayay ka imaaday ayay leedahay. waxay jeclaystay inay la noolaato. waxay tiri magaalada ayaan doonayaa inaan fahmo iyo qaabka ay lagu nool yahay halkaan ayaan doonayaa inaan kula noolaado. hayaan ku yareeyay tiri aniguna adeerkay dhalay gabadha maana diidanin inaan dib u celiyo balse waxay tiri magaalada ayaan fahansiiyay. waxay tiri gacmo furan iyo qalbi xaaran inta waan ku soo dhaweeyay ayay leedahay. ugu dambeyntii waxay leedahay run ahaantii gabadhi waxay leedahay waxbarasho ayaan geeyay way ii fiican tahay markaan wax u dirsado waxay leedahay waxay dhan 5 daqiiqo ay igu soo qabanaysaa. balse waxay leedahay gurigii waxaan ba ka helay ay leedahay run ahaantii wehel oo dhanka ay caruurta inay la hayso hadii aan magaalada wax u doonanayo inaan ayada caruurta aan ugu tago hadii dana gaar kale oo soo galeen aan ayada caruurta ugu tago waxay leedahay aad iyo aad ayaan ugu nastay run ahaantii haasa haatee maxaa ka dambeyn karaa taa ayada waxay leedahay sheekadu waxay leedahay ayada iyo waxa isbartay wiilkaan wada joognay anigu galay waxay leedahay gabadha kamaan shakineenin oo maxaan ku iraada ay leedahay ismaan
dhahaynin gabadhaani walaasha oo adeerkaa dhalay oo adiga soo dhaweysay oo dhanka ay miyiga ka imaade hoostaada waxaan ka sameyn doonto oo maxaan ku yiraahdaa dhibaatadan ku geysan doonta ismaan hal marna oran ayay leedahay kaasa hata waxay leedahay waxaas oo dhan maana fahmin waxay leedahay magaalada markaan aado dhowr maalin oo waxaan arkay ay leedahay ninkii oo guriga xilliyada duhurka ku soo laabtay anigu maadaama aan horaan aan u aqaan ay leedahay inuu guriga duhuradii xilliyada qadada subaxii u baxa habeenkii fiidka hore ayuu iimaan jiray ay leedahay shaqooyinka ay aad ugu badnaa waxa soo tuhun bay igu haysan jirnay ay leedahay balse dhowr maalin anigoo magaalada u baxay oo dana gaar ah ay soo galeen baa waxaan arkay bay tiri asagoo gurigii joogo oo dhanka ay fadhiyo waxaa kugu dhacay sidee wax u jiraan xilliyada camal maada soo laaban jirin sidee wax u jiraan markaan ku yiraahdana wuxuu igu yiri ay leedahay dib ma lahan gurigeyga ayaan ku soo laabtay shaqooyinkana way iga kala yaraayeen xilli hore waan iska soo dhameeyay saas awgeed ayaan gurigana siinuu soo raadsaday waxay leedahay run ahaantii anigu taa ayada shaki kamaan galin oo isma dhahayn arin baa halkaan ka soo socoto haashaate waxay leedahay ninka wuxuu guriga ugu soo noqonaya labada ruux ay xiriir inta wada sameysteen hoose xiriirkoodana uusan dheeraanin oo muddooyin bilooyin ay ku soo koobeen run ahaantii hoos inta iska mihirsaday iska aroosay waxay leedahay maalintii aan anigu maqanahay oo labadooda bis ay guriga ku soo haraan ay ayada joogtay istiraado alleelahay way baxday gabadhii ay bal soo orod ninka ay ku dhahayso halkaas waxay leedahay run ahaantii waqti lagu wada qaatay waxay leedahay run ahaantii aad iyo aad ayaan ugu xumaaday maalmaha kamid ay leedahay sida ay markii qisada gabadha ay ku ogaanayso in laba ruux wax ka dhaxeeyay yihiin gabadha waxaan arkay ay leedahay uur ku soo baxay waxaan ku iray ay leedahay sidee wax u jiraan oo uurkan xakuu ka yimaaday gabar ayaa ahayd ani gabar baan ku ogaa shilmaha daraad baa miyiga ka yimaaday aniga waan naxay ay leedahay run ahaantii waxaan isirey ay leedahay gabadhan adeerka dhalo oo shil miyiga ka yimaaday ama banaanka wax kale imaaday waan naxay ay leedahay run ahaantii haasahaato waxa la igu jawaabay ay leedahay uurkan aad arkayso uur sharci darro ku yimaaday maahan waa uur maxaan ku yiraahdaa sharci ku yimaaday ninkan ayaan qaba guriga degan hebel gurigaana dhinac la iga degan yahay gabadhay wareerkayga daa waxa soo buuq ma jirnaag la qabo oo marwo ayaan hasidaada camal waxay tiri fajac ayaa igu noqotay run ahaantii in hadalkaasi igu jawaabta wadaamin waayay leedahay waan ku celiyay waxaas waad igu ciyaaraysaa kaftan ayaad sameynaysaa ma dhici karto way dhacday taa ayada waxay leedahay ayay igu jawaabtay leedahay waxban lagama qaban karaayo ani adiga ma ninkan ayaa ina qabo run ahaantii waxay tiri tii ayada waan qaadan waayay ninkii ayaan u tagay arinta ayaan u sheegay wuxuu igu jawaabay leedahay run ahaantii asagoona marnaba iga baqaynin uu ileeyahay leedahay afar ayuu ilaahay ii barnay run ahaantii gabadhaana waan isfahnay maxaan ku yiraahdaa kalsooni ayaana halkaan ka abuurantay waan xaaskayga adiguna waa xaaskayga ayaa tahay reerkaaga dhinac ka degnaa gabadhaana guri wax baan u raadinayaa intaan labada maalin bay marti kugu tahay wixii ka dambeeyay ayadana guri kala ay degaysaa adigana waa noloshaadii hore ayaad ku jiraysaa caruurtaada ka dhex bixin ayaa lagu jawaabay tiri wax aan ku sameeyo ma garanayo maxaa yeelay ay leedahay run ahaantii reerkii aan shalay ka soo tagay on asaga dartiisa ugu soo go'ay maantartaan kuma noqon karaayo waxay leedahay run ahaantii asagana lama noolaan karaayo waa ninkii waxaan ku raadaya khiyaanada ogaantii geystay haddana nooc ogaanto bini'aadan aan looga hadli kareenin igula hadlay ayay leedahay haddana waxay leedahay run ahaantii sideen aan bahwadaa ku wada noqonaa gabadhii adeerkee dhalay oo shali miyiga aan ka keenay run ahaantii gacanta aan siiyana inay sidaas ay ugula hadasho ayaduna waxay leedahay tii ayadahan way ii cuntami weysay caruurteydina waxay leedahay nolol ayay u baahan yihiin waxbarasho ayay ku jiraan waxay leedahay caruur aniga gacanta shaqo kuma hayo asagoo kale ayaan sugayay subaxii meesha fariista caruurteyda jikada haddaan u galo waxay leedahay banaanka waxba kamaana keeni jirin hadda waxay leedahay dhibaatadaas ayaa haysato waxay leedahay labadeyda garabba waxay leedahay garabkii aan gabadhi ku tugsanayo walaashay ahayd ee garabkii ninkayga caruurteyda aabood ahaa labada way qiyaameen ayay leedahay ila soo taliyo maxaan sameeyaa talada waa xagiina ayay leedahay run ahaantii qisadaas aad iyo aad u xanuunka badan gabadhaas ayaa in la soo wadaagtay muhiimna ma aha run ahaantii halka ay joogto magaceeda iyo maxaan ku yiraahdaa inaan halkaan ka sheegno muhiimadu waxa weeye
iyo qisada inaan idin soo gudbiyo idinkuna aad fahantaan wixii talo oo ku saabsan gabadhaasna aad halkaas ka siisaan muhiimadda kaliya waa intaas waxaan idin leeyahay jimco aad iyo aad u qurux badan garab wanaagsan ayaan hawada idin soo marinayaa taladiinu halkaas inaad ugu soo qortaan talada ugu wanaagsan oo adigu maanta naftaada run ahaantii aad jeclaan lahayd in la siiyo inaad gabadhaasi siisa ayaan halkaan ugu fadhinaa run ahaantii channelkan waa channelka Shankroon channel waxaan idin leeyahay subscribe-ka ka ilaawina like siina share barnaamijkan maxaa yeelay gabadhan waxay u baahan tahay dhiirigelin fara badan inay bulsho weynta ku xiran channelkan iyo waliba bulsho weynta kale ku nool bulshada inay maxaan ku raadayay ay la wadaagaan talooyin wanaagsan qalab wanaagsan ayaan idin leeyahay aad iyo mahadsantihiin mar walba ha ilaawina subscribe cidi aan hore halkaan saaxiib ku wadan heen cidi aan saaxiib hore aan ugu heenna waxaan idin leeyahay like si share programkan sidoo kale waxaan idin leeyahay commentigiina waa dhiirigelin gabadhaasna dhiirigelin ayay u noqonaysaa mid ugu wanaagsan oo comment-ka aan isdhigi kareyn run ahaantii fariintiina mid ugu salimsan oo ugu wanaagsan oo gabadhaasi galabta ay ka heli kareyso ayaan halkaan ugu baahanahay galab wanaagsan ayaan idin leeyahay meerbood caalamka ka joogtaan iyo waliba jimco aad iyo aad u qurux badan